بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا وناكسن كسو دوادا لندن my hometown blog aan mar walba doonayo in asxaabta Solar Portal ay ka bartaan magaaladan caanka ah ee qadiimka ah ee gurigayga ahaa nolosheedii inta ugu badnayd waxaan ku suganahay bartamaha magaalada London maanta focuska waxaan saaraynaa waxbarashada sida la socotaan magaaladan London waa magaalada adduunka ugu jaamacad badan waxa ku yaala 40 higher education ama jaamacadood iyo macadyo iyo institutionka macadyada ugu badan adduunka ee ajaanibta wadamada kale haddii aan leeyahay Mareykanka Yurubta kale wadamada Carabta meeshan iminkan aan ku suganahay waa bartamaha waxa la yiraahdaa Holborn Russell Square area waana meesha ay ku yaalaan jaamacadaha ugu badan ee magaaladan caasimadda ah 40 kan jaamacadood ee kala duwan waxay leeyihiin institution kala duwan ama macado aad u fara badan oo ay wax ka bartaan 400,000 oo arday runtii waxaan dhihi karaa waa magaalada ugu fursada badan haddii la eego dhanka waxbarashada iyadoo isla markaa dowladda Ingiriisku sanadkii aad ka heli kartid lacag guna ah waxbarasho ah iyo deyn isugu jira 30 ilaa 40,000 oo dollar mar walba waxay ku xiran tahay waxa aad baratid marka dadka doonaya inay ogaadaan tusaale ahaan jaamacadda ugu weyn oo leh macadyo isugu jira 20 colleges waana federal institution ayaa la yiraahdaa waa jaamacadda la yiraahdo University of London oo iminkan u socda runtii meeshan iminkan aan joogo Russell Square waxay ugu reebtaa maaragtay xusuus aad u wanaagsan 1999 oo iminka laga joogo 20 sano ayay ahayd markii ugu horeysay oo jaamacad aan ka galo jaamacad macadyada ka mid ah University of London 20 sano ayaa ka soo dhigtay runtii waa cajiib marka University of London waa federal institution oo ka kooban 20 college ama institution kuwaas oo kale ah London School of Hygiene and Tropical Medicine School of Advanced Study London School of Economics and Political Science Courtauld Institute of Art Institute of Cancer Research waxa kaloo ku yaala London Business School Royal Academy of Music St George's University of London King's College London Queen Mary University of London Royal Veterinary College School of Oriental and African Studies oo mar dhow aan arki doono haddii la yiraahdo University College London Birkbeck University hore University of London Hythrop College Goldsmith Royal Holloway Royal Central School of Speech and Drama City University of London iyo University of London Institute of Paris marka waa 20 institution ayaa University of London ay hoos timaadaa runtiina meeshan aad ku aragtaan duhuradii waxaa soo fadhiista arday aad u fara badan oo ka kala yimaaday macadyada kala duwan marka macad waa institution sida awgeed waxaan isku dayaa dhanka meelaha ugu badan ee Soomaalida wax ka bartaan nasiib wanaag gabdhaha ayaa u badan waxa la dhihi karaa 90% gabdhaha Soomaalida ayaa ku barta jaamacadaha waddankan Ingiriiska oo bilaashka ah lacagna lagu siiyo raggeeni lama dhihi karo 0.0% in ay wax ka bartaan jaamacadaha ku yaala waddankan Ingiriiska qaasatan caasimadana saan hore kugu sheegay waxa ku jirta 10 jaamacadood ee adduunka ugu wanaagsan iyo waxa jira group kale oo dad ay soo weydiiyeen kaas oo groupka la yiraahdo Russell groupkana maxay yihiin iyo qaabka loo dalbado oo qaab aad u fudud marka xilligan waqtigan 2019 aan idin la hadlayo aniga Cabdinaasir ah waxaan wadaa degree 4 sano oo sanadkii labaad ah ayaan ka wadaa meeshan oo runtii degree aad u wanaagsan oo insha Allah markaan qalin jabiyo haddii la yiraahdo aan idin la wadaagi doono runtii arday Soomaali waan ku arkay laakiin aad bay ugu yar yihiin aad baan ugu yarnahay waxbarashada aad baan ugu leedanaa meel walba meeshan fursadda kaliya aad ka helaysid waxay tahay adoo waxbarasho lagu siiyay oo sanadkii inta u dhaxaysa xataa 30 ilaa 40,000 oo dollar dawladda ay ku amaahiso ama ay ku siiso si deeq ah ku siiso isla markaana scholarship ay ka jiraan qofkii fursadda dhaafta runtii waxaan dhihi karaa waa qof aqligiisu aad u xun yahay marka waxa kale oo jira Russell Groups ka inii sheegay 24 jaamacadood oo ah jaamacadaha waddankan ugu muhiimsan ayay ka kooban yihiin kuwaasoo ah World Class Research Intensive University waa number 1 ay qaarkood kaga jiraan adduunka waxaana kala yihiin
haddaan idiin sheego 24 University of Birmingham, University of Bristol, University of Cambridge, Cardiff University, Durham University, University of Edinburgh, University of Exeter, University of Glasgow, Imperial College London. magacaas markaa Imperial College London dhegaha si fiican ugu qabta sababtoo ah waxaan doonayaa in aan idinka sheego waxyaabo muhiim ah. waxaa kaloo jira King's College London ayaa ku jira, University of Leeds, University of Liverpool, London School of Economics and Political Science, University of Manchester, Newcastle University, University of Nottingham, University of Oxford, Queen Mary University of London, Queen's University of Belfast, North Ireland, University of Sheffield, University of Southampton, University College London, University of Warwick, iyo ugu dambeyn University of York. runtii waa meelaha ugu muhiimsan. marka meelahan waxaad ku arkaysaa jaamacadaha kala duwan, University of London, macadyada ay leedahay oo gebi ahaan ka madax banaan jaamacadda siday u kala duwan tahay. marka iminka waxaan u sii socdaa meesha Soomaalidu aadka ugu badan yihiin oo astaanta la yiraahdo SOAS ama School of Oriental and African Studies halkan ku yaala. tusaale ahaan meeshan waxaad ku aragtaa School of Social Science, History and Philosophy. waxaad kaloo ku aragtaa Birkbeck College, Pearce Institute for Study of Antisemitism. marka meeshan waa golaha meel walba waxbarashada waddankan Ingiriiska qof walba wax ka barta. marka SOAS waad ujeedaa inta University of London, Institute of Education, Woburn Square, inta ayaa ah meesha dadka waddanka xukuma wax lagu baro. waxaa kaloo idin gudbinaya 10 jaamacadood ee adduunka ugu sareeya 2019 ilaa iyo 2020 in ay ku jirto jaamacad ku taala magaaladan caanka ah ee qadiimka ah ee London. jaamacadaas waa Imperial College London. waxaa ugu horeeya University of Oxford number 1, number 2 Cambridge, Stanford University oo Mareykanka ayaa 3 ah, MIT Massachusetts Institute of Technology number 4, number 5 California Institution of Technology, Harvard University ayaa 6 ah, 7 waxa ah Princeton University, Yale University ayaa 8 ah, Imperial College iyo ugu dambeyn University of Chicago. marka iminka waxaan soo dhaxgalnay dhankii Imperial College, dhanka kale ay ku taala University College London campuskeeda. kanna waa iskuulka ugu caansan oo University of London oo ka mid yahay School of Oriental and African Studies oo lagu barto wax walba oo la xiriira arrimaha Afrika iyo wadamada Aasiya lagu barto. waxay leeyihiin macadyo aad u waaweyn, arday ka timaada Afrika, Carabta, wadamada Asia ayaa inta aad wax uga barta. marka saan idinku sheegay fursadaha ugu waaweyn ee scholarshipka ardayda dibadda ku nool way jiraan, ardayda waddankan ku nool oo guna ku qaadata oo bilaash wax walba lagu siiyo way jiraan. halkaas waxaan ka aragnaa Birkbeck College ee ka aragnaa dhismahan weyn. waa jaamacadaha ugu qadiimsan ee ka tirsan University of London ka tirsan ayaad halka ku aragtaan. iyadana dhankan waa guryaha qaarkood ay degan yihiin University of College London, Imperial College waa dhankaas. waa kan dhanka kale University of London School of Oriental and African Studies. waxaa kaloo lagu bartay University of London halkan aad aragtaan School of Slavonic and Eastern European Studies. waxaa ku jira Department of Computer Science, waxaa ku jira departments kala duwan ayaa jira. marka dhankan waa Birkbeck College, waa kan aad ujeeda dhankan ayay ku taallaa. marka runtii waxaan dhihi karaa dhankan waa University City, meel 400,000 oo arday wax ka bartaan, 40 jaamacadood iyo macadyo kala duwan ay ku jiraan. kuwooda ugu waaweyn Imperial University College London ka sokow London School of Economics iyo waxaa kaloo jira meesha laga barto iskuulka la yiraahdo School of Medicine iyo laga barto waxyaabaha tropical disease-ka laga barto. isna halkan iyo ku yaala waa meelaha ugu sareeya ee waddankan laga barto. runtii waa waxa lagu jira winter ayaa lagu jira oo qabow aad u badan ayaa jira. marka waxaan ku soo afjarayaa kaliya institutionka ugu caansan ee maaragtay la yiraahdo iskuulka lagu barto London School of Hygiene and Tropical Medicine oo halkan aan ku yaalo. intaan aad aragtaan waa jaamacad. marka gees ilaa iyo gees Imperial College, University College London dhankaas ay ku taallaa, dhankaas kale intan waa area. marka haddii aad tahay qof ku nool waddanka UK, magaalada London, ka faa'iidayso. lacag baad ku qaadanaysaa, waa waxbarasho lagu leeyahay, lacag baad ku qaadanaysaa, isla markaana waxaad ku baranaysaa adduunka meel laga helaa bayraatee ma jirto. laakiin fursadda haddii fadhi ku dirir iyo siyaasad Soomaali waxaadan shaqo aan ku leena la gashin waqti ayaa kaa lumaya. waxaad
maaragtay noqonaysa qof jaahila fursadna ka faa'iidi waayo waa idin salaamaya waa London my hometown iyo Cabdiraas Ismaaciil